Ma isleedahay platform-ka aad isticmaalayso baa go'aaminaya video editing-kaaga? Iga dhageyso sirtan. Maya, hal-abuurka kuma xirna toolska ee waa saad uga dhigi lahayd mid awood leh. Haddii aad isticmaalayso After Effects, Premiere Pro ama mid kale, hal-abuurkaagu waa awooddaada saxda ah, maahan software-ka. Baro, isku day, samee wixii aad taqaano. Muhiim maaha software-ka ee waxa muhiim ah fikradda aad xambaarsan tahay. Haddii aad intaan fahanto, waxaad tahay editor dhammaystiran. Bal maanta waxaan baran doonaa qaabka loo sameeyo muuqaalka noocan ah. Adigoo i daawanaya ku soo bir channelka subscribe saar. Haddii aad horey noola joogteen muuqaalka la garay, aad baad u mahadsantahay. Marka aad soo qaadato muuqaalada iyo codka, maanta 80% editing-ka waxaa door muhiim ah ka qaadan doona codka. Waayo waxaan rabnaa inaan ku qabno beats. Codka ku dul dhufo, kadibna waxaad tagaysaa halka ay qoran tahay beats, kadibna meel walba muusikada ay ka sameynayso dhawaaqa noocan ah. Waxaad ku qabanaysaa beats. Kadibna markaad dhammayso beats-ka, meel walba aad ku qabatay beats, waxaad ku aadinaysaa muuqaalada jaritaankood halkaas ku aadi. Muuqaalkan ugu horeeyo wax editing ha ku sameynin, iskaga tag muuqaalka kale u imaaw. Keyframe ku qabo qaybta ugu horeyso, qaybta ugu dambeyso tag. Keyframe ku qabo. Marka gadaal u soo laabo, keyframe-kii koowaad aad ku qabatay, muuqaalka zoom soo dheh. Kadibna marka aad zoom-kiisa cabirkiisa aad saxdo, waxaad tagaysaa qaybtan ay qoran tahay graph. Kadibna waxaad ku daraysaa graph-kan. Marka dhammaantood muuqaalada waxaad ku sameynaysaa qaabkan. Marka dhammaantood ku sameyso qaabkan, dib u soo laabo. Kadibna waxaad ku dhufanaysaa halkan. Waxaadna ka sii dooranaysaa animation-kan. Marka aad doorato, kadibna ka sii dooro halkan, waxaad dhahaysaa apply all. Dhammaantood sidaas ayuu u wada darmi doonaa. Marka intaas sameyso, waxaad tagaysaa halka ay qoran tahay effect. Kadibna waxaad ku daraysaa effect-gan. Muuqaalka la ekeysii, kadibna effect-ga ku dul dhufo. Qaybtan dooro, haddana waxaad ka sii dooranaysaa qaybtan kale. Sidaas ayaa muuqaalka dhammaantiis u wada darmi doonaa. Effects-ka tag, kadibna dhinacan kale muuqaalka la ekeysii oo gadaal u jiidiyadana. Marka intaas sameyso, waxaad tagaysaa halka ay qoran tahay adjust. Kadibna qaybta contrast-ka qaybtan waxaad geynaysaa 8. Qaybtan kale u imaaw waxaad geynaysaa iyadana 10. Sharpen-ka u imaaw waxaad geynaysaa 48. Midaan kale dooro waxaad geynaysaa 80 ama 78. Waxaad tagaysaa highlights-kan waxaad geynaysaa 5 gey. Midaan kale waxaad geynaysaa 6. Midaan kale dooro iyadana waxaad geynaysaa 5 ama iska gey. Midaan kale dooro waxaad geynaysaa 2 gey. Midaan waxaad geynaysaa 11 iska gey iyadana. Qaybtan kale dooro hadana color-kan iyo midkaan kee qurux badan. Ani ahaan waxaan doortay midkaan. Marka midaan waxaad geynaysaa number 9. Qaybtan kale u soo laabo waxaad geynaysaa marka 34 si color-ka xoogaa u qurux badnaado. Dib u soo laabo, kadibna waxaad tagaysaa halkan. Waxaadna ka sii dooranaysaa qaybta green-ka. Waxaad ku daraysaa xoogaa green ah si background-ka u qurux badnaado. Dib u soo laabo, kadibna adjust-ga aad ku soo darsatay dhammaan muuqaalka la ekeysii. Muuqaalka markiisii hore editing-kiisa wuxuu ahaa sidaan, waxaan u bedelnay qaabkan. Muuqaalkii aan soo edit gareynaynay halkan ayuu ku egyahay. Markaan aragno natiijadii aan soo sameynay muuqaalka. Haddii aad halkan ila soo gaartay oo aad weli nagu soo biirin, fadlan nagu soo biir channelka subscribe saar, muuqaalkana like saar, waa dhiirigelin ayaa noo tahay.